suurtagal ma aha inaan bedelo meesha ay dabayshu u socoto, laakiin waxaan awoodaa inaan xakameeyo shiraaca markabkayga si aan u aadiyo meesha aan doonayo. maanta wixii aadan bilaabin berito ma dhammaystiri kartid. kuwa guulaystay lama dhalin iyaga oo ay guushu wehelkooda tahay, ee iyaga ayaa noqday kuwa guulaystay sababtoo ah waxay nafsadooda caado uga dhigeen in ay sameeyaan wax ay ka qusteen kuwa fashilmay. kuwa guulaystay markasto ma jeclaystaan waxa ay sameeyaan, laakiinse waxay hawshu u qabtaan si khasab ku ah, sidaas bayna ku noqdaan kuwa guulaystay. ku raaxayso waddadii aad dooratay, hana ku xisaabtamin maalmihii tagay, ee ka dhig kuwa la mid ah kuwii hore ee badnaa. kaas ayaa ah qiyaasta dhabta ah ee guusha, ee ma ahan waxa aad adigu ku guulaysatay oo keliya, ee waxaa la tixgelinayaa waa sida aad u guulaysatay. afkaartaada maaree, sababtoo ah waxay noqon doonaan erayo. maaree kelmadahaaga, sababtoo ah waxay noqon doonaan falal. maaree falalkaaga, sababtoo ah waxay noqon doonaan caadooyin. maaree caadooyinkaaga, sababtoo ah waxay noqon doonaan shakhsiyadaada. maaree shakhsiyadaada, sababtoo ah waxay noqon doontaa mustaqbalkaaga. farxadda kuma xirna waxa aad tahay ama waxaad haysatid, ee waxay ku xiran tahay oo keliya waxa aad filaysid. waxa aad ku sugan tahay iyo meesha aad joogtid waa wax soo saarka fakarkaaga. si aad u beddeshid heerka aad taagan tahay iyo meesha aad joogtid, waa inaad beddeshaa habka aad u fikiraysid. haddii uu maalku yahay rajada aad ka leedahay xurnimada, weligaa ma haninaysid. damaanaqaadka dhabta ah ee uu ragga ku hanan karo dunidan waa macluumaad badan iyo khibrad iyo awood uu u yeesho waxqabadkiisa. waddada ugu wanaagsan ee aad naftaada ku dhiirigelin kartid waa inaad qof kale dhiirigelisaa oo aad sare u qaaddaa qiimihiisa. tallaabada aad qaadaysid tan ugu horraysa ha ahaato mid aad kalsooni ku qabtid, hana u aabayeelin awoodda aadan u lahayn jaranjarooyinka inta dhiman, ee keliya waxaad samaysaa inaad ku tallaabsatid jaranjarada ugu horrayso. dadku waa ay isbeddelayaan, waxayna noqonayaan barta baraaruga mar haddii ay bilaabaan inay rumeeyaan awoodda ay u leeyihiin hanashada hadafkooda. markaa ayay aaminayaan awooddooda gudaha, isla saacaddaas bay hananayaan sirta guusha ugu horrayso. ha dheeraato ama ha dhowaato, kuwa guulaysanaya had walba waa kuwa rumaysan inay awood u leeyihiin taasi. midka inaga midka ahi wax soo ikhtiraacadiisa ugu horrayso waxay dhacdaa marka uu ogaado inuu awoodo samaynta wax uu ka baqi jiray ee uu aaminsanaa inuusan awoodin. ha walwalin marka aad qasrigaaga ku dhisatid hawada dusheeda, meeshaas ayaaba iska ahayd booskii uu u qalmay, ee hadda dhaqsi u bilow dhisidda aasaaskiisa ee gunta hoose. jiritaanka qofka waa natiijada ka dhalata fikirkiisa. waxa uu ka fikirayo ayuu noqonayaa. mashaakilada looma samaynin inaan isku dhiibno, ee waxaa loo sameeyey inaan burburinaa oo aan ka tallaabsanaa. dadka oo dhan waxa ay doonayaan inay wax ka beddelaan dunida ay ku nool yihiin, laakiinse ma jiro qof ku fikiraya inuu nafsadiisa wax ka beddelo. qofka marka uu sameeyo waxa laga doonaya oo keliya, isaga waa addoon. qofka marka uu sameeyo wax ka badan waxa laga doonayayna waa xur. quusasho nolosha ma weheliso, nololna kuma ansaxayso meel ay quusasho ka jirto.